war-saxaafadeed gogol nabadeed oo lagu xoojinayo nabadda wada noolaanshaha iyo walaaltinimada gobolka Sanaag. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somalilan Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro isagoo ka duulaya mas'uuliyadda qarannimo ee ka saaran ilaalinta midnimada iyo nabadgelyada dalka waxa uu si rasmi ah u fidiyey gogol nabadeed oo ballaadhan oo uu u dhigay dhammaan beelaha walaalaha ah ee wada dega gobolka Sanaag. Gogosha nabadeed waxa uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Somalilan dhigay magaalada Ceergaabo, taasoo ujeeddadeedu tahay in si buuxda loo soo afjaro dhammaan khilaafaadkii iyo shaqaaqooyinkii horey uga dhacay gobolka, looguna beddelo xasilooni, isfahan iyo walaaltinimo dhab ah. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somalilan wuxuu ugu baaqayaa dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada, gaar ahaan odayaasha dhaqanka, culimada, ganacsatada, haweenka iyo dhallinyarada inay si mug leh u taageeraan hawsha nabadaynta ah, kuna biiraan dadaallada lagu sugayo nabad waarta gobolka Sanaag. Waxa kale uu madaxweynuhu xusay in nabadda iyo wada noolaanshuhu ay yihiin tiir-dhexaadka horumarka iyo dowladnimada Jamhuuriyadda Somalilan. 2 in beel walba oo degta gobolka Sanaag ay xil weyn iska saarto ilaalinta nabadda guud, midnimada iyo wadajirka bulshada reer Sanaag. 3 in xukuumadda Jamhuuriyadda Somalilan ay mar walba garab taagan tahay dadaallada nabadaynta, wax kastana u hurayso sidii khilaaf kasta loogu beddeli lahaa wada hadal iyo isu tanaasul bulsho. 4 in gogosha nabadeed lagu xallin doono dhammaan tabashooyinka iyo dhibaatooyinkii hore u dhacay iyada oo la adeegsanayo habdhaqameed iyo wada xaajo toos ah oo ku salaysan cadaalad iyo garsoor suuban. Ugu dambayntii, madaxweynaha Jamhuuriyadda Somalilan wuxuu bulshada gobolka Sanaag iyo guud ahaanba ummadda reer Somalilan ugu baaqayaa in laga wada shaqeeyo midnimo qaran si aynu u helno mustaqbal aynu wada leenahay oo ku salaysan nabad iyo cadaalad.